inuu arrinkaas waa jiraa ilaa iyo hadda Soomaalida intaan diiwaangelinay waxay waxyeello soo gaartay 48 dukaan oo 48 dukaan maaragtay ay xiran yihiin oo hadda wax ka shaqeeya aysan jirin qaarna aan dib loogu noqonaynin qaarna aan rajo ka wadna in dib aan maaragtay u furno oo dadaalkaas uu noo socdo dukaamadan iyo waa isku darsan tahay qaar waxay u xirmeen wax la yiraahdo maaragtay barnaamijyo ay dhigayeen dadka maaragtay wadaniyiinta oo ka cabanayay maaragtay service la'aan ama waxyaabahan maaragtay shaqo la'aan oo dawladda xageeda ama dawladda hoose sheegay ay gaarsiin weysay biyo iyo koronto iyo wax noocaas lamid ah qaarna waxay u xiriyeen dawladda hoose laftirkooda oo le maaragtay waxaan soo ragnay sharciyo cusub baan soo ragnay qofkii uu sharciga dukaanka ka dhaca u cusboonaysiin mayno ilaa maaragtay lasoo taxqiijiyo sharciga uu wato qofka codsi loo diro Home Affairs-ka oo markaasi wasaaradda arrimaha gudaha ay soo cadayso qofka inuu shaqaysan kara iyo shaqo sidaas u dheer waayeen ma garatay waa gartay marka adinku ka jaaliyad ahaan wax dadaal arrimahaas ma ka gasheen haddaad ka gasheen se rajo intee la eg ayaad ka qabtaan in dukaamadaasi dib loo furo rajo weyn baan ka qabnaa in dib loo furo dadka Soomaalida ana kuma baraarugsana waxyaabaha hadda dhacaya sharciyo cusub oo dawladda ay soo rabtay ayaa jiro waxaan kala hadalnay wasaaradda arrimaha gudaha ama Home Affairs-ka waxaan kala hadalnay Lawyers of the Human Rights-kana waan la hadalnay waxa kaloo la hadalnay NGO-yo kale oo naga caawiya maaragtay arrimaha noocaas naga caawiyana waan kala hadalnay ilaa iyo haddana dadka Soomaalida weli kuma baraarugsana sharcigan cusub wuxuuna maaragtay saameyn doonaa qof kasta oo ajnabi ah oo wadankan joogo oo ganacsada ayuu saameyn doonaa dhibaatada meesha ka jirtana marka waa dhibaato intaas la eg ilaa iyo haddana waxaan wadnaa in weli jaaliyadina aan u sheegno oo dadka Soomaaliyeed aan wacyigelinteeda aan wadno oo maantadan laftirkeeda aan kula hadlayo shir maaragtay aan isugu nimid jaaliyada ayaan maaragtay arrintaas kaga wada hadlaynay arrintaas kulli aad iyo aad baan maaragtay ayaan weli u wadnaa marka waan wadnaa laakiin wadankii oo zaid u weyn iyo maaragtay baraarugsanaan la'aan xagga maaragtay qowmiyadda Soomaalida dhibaatada ka haysata wadanka ka mid tahay intaas way jirtaa waa tahay gudoomiye Cabdirashiid bal ka waran dhanka safaaradda Soomaaliya waxa akhbaarada oo arrimahaasi uga gudbiseen miyay jirtaa dawladda Soomaaliya waxaad moodaa inaysan wax badan ka warqabin dhibaatada ka dhacdo maaragtay Soomaalida ku dhacdo oo wadankan ka dhacdo haddii ay ogaatana waxay kaga jirtaa numberka u hooseeya uga jirtaa wax badan baan u sheegnay meeshaan hadda aan joogno waxaa jiro dad maaragtay ku dhibaataysan oo dukaamahoodii la gubay oo famil ah oo caruur maaragtay badan leh oo carruurtooda ay guryo maaragtay waxaan sheegay ay dhigtaan iskuullo waxaa jira maaragtay dukaamo la xiray waxaa jira dad la boobay oo maaragtay caadi loo boobay ilaa iyo hadda safaaradda nagalama hadlin nooma imaanin waxba nagama weydiinin qof caadi ah oo shakhsi oo la xiriirtay wax u qabatayna ma jirto si community ahaan iyo maamul ahaan oo wax uga qabatay oo noogu imaaday oo ama baraarujina ama maaragtay wax qabada oon ku hayno male dawladda xaggeeda ilaa iyo hadda waa talishaasi way taagan tahay